kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada barnaamij aan la yeelanay qayb ka mid ah dhalinyarta iyo aqoon-yahanka ku sugan ismaamulka magaalada Shilaabo. Kusoo dhawow adigoo ku bilaabaya magacaaga oo saddexan. Su'aasha koowaad ee ku weydiinayna waxa weeye sidee loogu diyaar garoobay xalfadda mahadnaqa iyo soo dhaweynta ismaamulka magaalada Shilaabo? magacaygu waa Cabdullaahi Xabsuul. Haddaad weydiisay qaabka loogu diyaar garoobay xafladda mahadnaqa ballaarinta qaab dhismeedka maamulka magaalada Shilaabo ee xukuumaddu bilihii lasoo dhaafay ay ku dartay deegaanka 24 ismaamul 14 degmo iyo gobollo la sugahay. waxaa loogu diyaar garoobay heerkii u sarreeyay ee loogu diyaar garoobay xafladda. shacabku waa ready inay ilaahay u mahad celiyaan. marka labaadna xukuumaddii iyo ciddii sabab u ahayd in Shilaabo ay ismaamul magaalo noqoto xafladda loogu mahadnaqayo marka hore Allah subxaanahu wa tacaala. marka labaad xukuumadda deegaanka ee uu hogaamiyey mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo xisbiga barwaaqo iyo guud ahaanba ilaa heer federaal. xafladdaas aad bay u sarreysaa. shacabku aad bay u diyaar garoobeen. kuwii magaalada agagaarka miyiga qurba joogtii bulshada qaybaheeda kala duwan aad baa loo soo dhaweynayaa. aad baana maaragta loogu diyaar garoobay xafladdaas mahadnaqa ballaaran ee ismaamulka magaalada Shilaabo iyo weliba degmada Caleen. reer Shilaabo maanta waa diyaar. waxay diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan martida oo imaanaysa iyo bulsho weynta dhammaan deriska iyo deegaanada kale. Cabdullaahi Cabdisuule waxaad ka mid tahay dhalinyarta iyo aqoon-yahanka ismaamulka magaalada Shilaabo. Adiga shakhsi ahaantaada markii aad maqashay in Shilaabo laga dhigay ismaamul magaalo maxaa dareentay? haddaad weydiisay wixii aan dareemay waxaan dareemay farxad aad u weyn oo aan la dareen ahaa bulshada ku dhaqan guud ahaan deegaanka Soomaalida gaar ahaan degmadii Shilaabo iyo maamulka magaalada Shilaabo. waxaan ugu farxanay sidii loogu farxo wixii la sugayay. alxamdulilah ilaahay baan u mahad celinay. waa ku faraxsannahay. waa ku sii faraxsanaan doonaa. waa ilaashan doonaa. alxamdulilah aad iyo aad baan ugu farxay. waad mahadsan tahay. maxaad is leedahay Shilaabo ay ku mudan in laga dhigo ismaamul magaalo? waxaan is leeyahay Shilaabo waxay ku mudan tahay in laga dhigo maamul magaalo. waa magaalo fac weyn. waa magaalo qadiimi ah. waa magaalo ganacsiyeed. waa magaalo la wada degan yahay oo aan hal jifi iyo hal qoys midna ku koobnay. waa magaalo ka dhaxaysa bulsho weynta Soomaaliyeed. waa magaaladii ku caan baxday ceelkii ku yaalay weynaa ee ku yaalay ceelbiyoodka ahaa. mahmahdii caanka ahayd aad garanaysaan ee ahayd waa Shilaabo waa Sharxadle waa in walo shubo. waa magaalo la rajeynayay inay noqoto xarunta shidaalka iyo baasiinka iyo batroolka iyo macdanta jeexdimeed laga maamulo. magaalo aan rajeynayno inay marti geliso oo ay beesha caalamka ay ka dhaxayso cadaan iyo madowga loo soo wada shaqo tago. sidaa laajiligeed Shilaabo way mudneed. waa meel la wada degan yahay oo dad badan oo waa ay degan yihiin. aad iyo aad baad mahadsantahay warbixintaada. isku mahadsantahay. adigoo ku bilaabaya magacaaga oo saddexan. su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxaa weeye sidee loogu diyaar garoobay xalfadda soo dhaweynta iyo mahadnaqa ismaamulka magaalada Shilaabo? magacaygu waa Yamal Faarax Ashir. waxaan ka mid ahay dhalinyarada maamulka magaalada Shilaabo. maamulka magaalada Shilaabo runtii sida loogu diyaar garoobay waa si ballaaran oo aan la qiyaasi karin. qurba joogteedu way ka kala imaadeen dunida daafaheeda. dhalinyaradeeduna u diyaar garoobeen. odayaashooda u diyaar garoobeen. culimooyinkooda u diyaar garoobeen. haweenka qaybahooda kala duwan u diyaar garoobeen. ayagoo soo dhaweynayaan qaab dhismeedka cusub ee maamulka magaalada lagu soo daray. loogana mahad celinayo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. marka Shilaabo maadaama in badan ay ahayd degmo ay ahayd xukuumadii kala duwanaa talooyinka soo qabtay soo marayna aysan noqonin meelihii qaab dhismeedka lagu soo kordhinayay mar walbaba ay ka hadhaysay. runtii xukuumaddan madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu hogaanka u hayo ay si hagar la'aan ay ugu soo dareen qaab dhismeedka weliba ay ballaariyeen oo degmada Caleen ay kasii go'day. runtii waa mid aan ugu mahadnaqano. waa mid aan uga mahad celinayno. waa mid ma garanaysaa runtii aan la qiyaasi karin dareenkanaga. ayaa la Faarax Ashir.
waxaad ka mid tahay dhalinyarta ismaamulka magaalada Shilaabo shakhsi ahaantaada markii aad maqashay in magaalada Shilaabo laga dhigay ismaamul magaalo maxaad dareentay waxaan dareemay runtii waxaan u maleynayaa markii la soo saaray bayaankii lagu soo daray qaab dhismeedka cusub runtii waxaan u maleynayaa habeenkii dareenkayga lama qiyaasi karin habeenkaa waxaan dhihi karaa haweenada kale oo iga duwaneyd wali xitaa habeenkii farxad darteed ma seexanin oo soo jeeday maasan tahay maxaad is leedahay magaalada Shilaabo way ku mudnayd in ismaamul magaalo laga dhigo runtii waxaan is odhan karaa in ismaamul magaalo laga dhigo maamulka magaalada Shilaabo way mudnayd weliba hadda xilliya ka horreysay way sii mudnayd in laga dhigaa laakiin wax badan oo dee sababa jiray oo annagu weliba tirsanayno cadaalad darra oo bay kaga xidhisay laakiin waa qadiimi oo magaalo in badan oo marxalad ka duwan Shilaabo waxaa jirtay in 3 jeer la gubay oo markii saddexaad dib loo asaasay 2 jeer hore la soo gubay iyadoo magaalo weyn oo baaxad weyn iyadoo ay tahay haddana waa la gubay haddana mar labaad baa la gubay mar saddexaad baa hadda la askumay oo hadda stage-ka hadda ay marayso ay ku tahay maamul magaalo marka Shilaabo runtii waxaan isleenahay waa meesha keliya mustaqbalka loo soo dalxiis tagi doono ceelasha shidaalka iyo kheyraadkii ay ku taalo aad iyo aad baad mahadsantahay adigoo ku bilaabaya magacaaga oo saddexan su-aasha koowaad aan ku weydiinayna waxaa weeye sidee loogu diyaar garoobay xalfadda soo dhaweynta iyo mahadnaqa ismaamulka magaalada Shilaabo magacaygu waxaa weeyaan xadiis maxamed axmed waxaan ka mid ahay dhalinyarada cuslaatay ee maamulka magaalada Shilaabo waan dhowahay abwaan adna soo dhawow Shilaabo waxaa ka socda diyaar garoow ballaaran oo loogu diyaar garoobayo soo dhaweynta maamulka magaalada Shilaabo oo dhawaan dhici doonta diyaar garowgu dhan badan buu ka socdaa ilaa qurbihii waa la iskaga imanayaa sidoo kale waxaa socda diyaar garoow ballaaran oo magaalada gudihiisa ah socda run ahaantii iyadoo aysan soo gaarin adeegii maamul magaalo ee dawliga ah aysan magaalada soo gaarin haddana magaalada waa laga dareemayaa inay tahay magaalo maaragtay maamul magaalo tan iyo maalinkii lagu dhawaaqay maamul magaalada durba qaab dhismeedku waa isbedelayba magaalada shacabkeedii adeegeedii dhaqdhaqaaqii ganacsi magaalada shacab bay yeelatayba tusaalahaan hadda bilaha xagaag oo kale magaaladu cidlay ahaan jirta hadda bilihii xagaagan ku jirnaa dad baa meel laga mara lala-ay marka run ahaantii qaab dhismeedkan cusub durba magaalada wuu ka muuqanayaa markii aad maqashay in Shilaabo laga dhigay ismaamul magaalo maxaa dareentay habeenkii wax soo baxeen anigu waxaan joogay magaalada Qabdaar baan joogay habeenkii waan seexan waayey habeenkii iyada waan seexan waayey anoo tabti u soo jeeda in yar baan yar dhacay baan u malay iyo horta waagu ii bariyey farxaddii magaalada Qabdaar inaan ku dhex qaato way igu simi weyday gaari baan soo raacay habeenkii dambe sidoo kale saan ban wadaha u fadhiyey dabaaldegii ugu jiray yaa waxaan hoyday oon malay labadii habeennimo iyo waa 2 maalmood dambaan dib u qaadiraysnaa hurdo la-aan daraaddeed yacni waxaan gallay xaalad ka baxsan aan la dareemi karin wixii aan ku jirnay mid ka baxsan baan gallay ka gees ilaa ka gees waad dareemi karaysaa hadda maalinkii banaanbaxa lagu soo qabanayay magaalada Shilaabo lagu qabanayay lagu soo dhaweynayay qaab dhismeedka noocii magaaladu noqotay waad arkayseen inta qof bili aadan magaalada isku soo baxay waa dareemayseen marka waad fahmi karaysaa heerka dadka maaragtay ay u baahnaayeen inay maanta magaaladoodii maamul magaalo noqoto inay xaqeedii hesho magaaladoodii faca weyneyd muddada badan soo jirtay ka mid ahayd meelaha deegaanka kheyraadka ku jiro yani waad dareemi karaysaa dadku say farxaddoodu heerkii gaarsiinayd maalinkaa ninkii joogay baa dareemi karaa ama dee social media kala socday maxaad is leedahay Shilaabo way ku mudnayd in laga dhigo ismaamul magaalo Shilaabo waxyaabahay ku mudnayd in maamul magaalo laga dhigo way fara badan yihiin laakiin haddaan soo yar koobo kow horta Shilaabo waa magaalo qadiimi ah weeyaan magaalooyinka deegaanka ugu qadiimisan ay ku jirtaa sidoo kale qadiiminimo ka sokow waxay ka mid tahay magaalooyinkii magaalada kheyraadka weeyaan oo aad garanaysaa hadda ceelkii jeexdimeed baa
shanqadhiisii maqashaa oo kana ma garata oo arigu ku daaqaya sidoo kale waa magaalo istiraatiiji weeyaan Shilaabo waxay jirtaa dhan xuduudeed bay jirtaa waa magaalo maartay ganacsi siyaabaha ku mudnaan waxaan leeyahay iyo ka mid tahay aad iyo aad baad mahadsantahay qadaam maadan adigoo ku bilaabaya magacaaga oo saddexan su-aasha koowaad ee ku weydiinayna waxa weeye sidee loogu diyaar garoobay xalfadda soo dhaweynta iyo mahadnaqa ismaamulka magaalada Shilaabo magacaygu waa maxamed xuseen axmed ka mid ah dhalinyarada maamul ismaamulka magaalada Shilaabo runtii haddaan in yar dib u laabto Shilaabo waxay ka mid ahayd degmooyinka ugu horreeyay deegaanka Soomaalida oo magaalo qadiimi ah oo magaalo taariikh badan ku leh deegaanka Soomaalida iyo weliba dalka Itoobiya Shilaabo waxaa ku yaala xarunta gaaska xarumaha shidaalka ee jeexdin waa magaalo qadiimi ah oo ka mid ah degmooyinka ugu horreeyay deegaanka Shilaabo waxay ka mid ahayd qaab dhismeedka cusbaa ee xukuumadda deegaanka Soomaalida dhawaan soo saartay runtii aad iyo aad bay bulshadu u soo dhaweysay waana ugu faraxsan tahay waaye Maxmed adiga shakhsi ahaan markaad maqashay in magaalada Shilaabo laga dhigay ismaamul maxaa dareentay runtii farxad aad iyo aad u weyn baan dareemay guud ahaanba shacabka farxad aad iyo aad u weyn bay dareemeen dabaaldegyo waaweyn baa socday ilaa maalinkii qaab dhismeedka cusub lagu soo daray Shilaabo iyo weliba degmada Caleen aad iyo aad bay shacabka iyo weliba qaybaha kala duwan ee dhalinyarada u soo dhaweeyay waad mahadsan tahay maxaad is leedahay Shilaabo ay ku mudnayd in laga dhigo ismaamul magaalo hore baan usoo sheegay Shilaabo maadaama ay magaalo qadiimi ahayd magaalooyinka ugu horreeyay deegaanka Soomaalida ay ka mid ahayd xaq bay u leedahay inay hesho ismaamul weliba inay gobol hesho si guud waan uga mahadcelinaynaa xukuumadda deegaanka xisbiga talada haya iyo weliba dhammaan cid walba oo ka qayb qaadata aad baad mahadsantahay magacaygu waa Bilaad Shabeelle waxaan ka mid ahay dhalinyarada qabanqaabada xafladda iyo soo dhaweynta martida ee maamulka magaalada Shilaabo ilaa hadda si fiican bay u socotaa waana soo dhaweynaa kelmayso ma naga siin kartaa warbixin yar oo kooban xalfadda jeedalowga xalfadda mahadnaqa soo dhaweynta ismaamulka magaalada Shilaabo ma mahadsan tahay xafladdu si fiican bay u socotaa ilaa hadda muddo dhowr beri waa loo diyaar garoobayay si guudna ilaa iyo sidii qaab dhismeedka cusub ay xukuumadda usoo siyaasay diyaar garowga jireen iyo mahadnaq ay u mahadnaqayaan xukuumadda iyo madaxweynaha dowladda deegaanka farriin yarna waa idin siiyooyaa farriinta waxaad iga gaarsiinaysaan madaxweynaha dowladda deegaanka iyo xukuumaddiisa mudan madaxweyne waa lagaa jecel yahay Shilaabo iyo Caleen dadka jooga aad bay kaaga jecel yihiin mahadnaq badanna way ku hayaan farriintayda halka kuu dhex marinayana waxaa weeyeen abaabulka ugu faraha badan iyo diyaar garowga ugu faraha badan dadka halka waxay u marinayaan madaxweyne mustafa inuu soo booqdo dadka xafladda iyo farxadda kala qayb qaatay aad u jecel yihiin marka farriintayda waxaad iga gaarsiinaysaan madaxweynaha xukuumaddiisa inay kasoo qayb galaan baaldegga iyo xafladaynta maamulka magaalada Shilaabo waxaan intaas sii raacinayaa mudan madaxweyne ha kasoo tegin gobolka jeexdin xarunta Shilaabo ayna kasoo tegin intaana ii raacin kusoo dhawow adoo ku bilaabaya magacaaga oo saddexan hayso dhawow salaam ya marka hore aqoonayaalle waxaan ahay mahad xambe waxaan ahay bulshooyinka ku dhaqan magaalada Shilaabo adiyo tiimkaaga aad baan idin soo dhaweynaynaa marka hore sidee loogu diyaar garoobay xalfadda mahadnaqa iyo soo dhaweynta ismaamulka magaalada Shilaabo runtii wallaahi waa wax aan in badan sugaynay oo ku taabaynay mataqaanaa ummaduna ay aad ugu faraxsan tahay waxaan filayaa si aad iyo aad loo soo dhaweyn doono haddii Allah ugu daro waaye markaad maqashay magaalada ismaamulka magaalada Shilaabo waxaa laga dhigay ismaamul maxaa dareentay dareen lama dhihi karo keliya farxad iyo raynrayn iyo mataqaanaa waxaan la soo koobi karin maan dareen sababtoo ah waa magaaladeedii oo waqti badan sugaysay in mataqaanaa kawsal iyo degmo wada socdaan helo waana ku faraxsanahay waana u mahadcelinayaa dhammaan dowladda iyo dadka kale ee waqtiga badan ku bixiyay ee ka shaqeeyay waaye maxaad is leedahay mudnaan bay ku heshay Shilaabo in laga dhigo ismaamul magaalo waa si fiican Shilaabo waa magaalo qadiimi ah wayna mudnay in laga dhigo adoo ku bilaabaya magacaaga oo saddexan mahadsantahay sidee loogu diyaar garoobay xalfadda mahadnaqa iyo soo dhaweynta ismaamulka magaalada Shilaabo والله حفلة سوينا سنة وقرب بينا على شلابة حلقة انتشر الماشي من كون يحصل عن تدريب معني الحمد لله هو المسلمين من هاي شعب شيء وحسن هذا الشخص هذا حاضر انت مركي على مقشي magaalada Shilaabo waxa laga dhigay ismaamul يا والله waxaan dareeyaa inaan wax kala garan waayo intaan joogo markii dhammaan Shilaabo laga dhigay inaan aakhiro joogo horta afar bari waxaan maysan lahaa waxaad kamid tahay culimada iyo odayaasha ismaamulka magaalada Shilaabo su-aasha ugu weyn oo weydiin waxa weeye sidee baa loogu diyaar garoobay
deegaanka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya maadaama yacni aanu ka filaynin madaxweynaha maadaama meeshan ay ahayd meel istiraatiiji ah oo yacni wax kasta ku habboon ama magaalo madaxda dalka ku habboon haddana inuu yacni gobol ka dhigo maadaama aanu madaxweynaha ka rajaynaynin haddana waxaanu leenahay madaxweyne waxaanu leenahay aad iyo aad baanu halkan kaaga hambalinaynaa waanu kusoo dhaweynayna aad iyo aad baana nagaaga jecel yahay waxaanu leenahay madaxweyne maadaama aad ismaamul noo magacowday waxaanu doonaynaa inaad gobolnimadeena nagu darto maadaama uu gobolka jeexjimeed uu yahay inaad yacni sida aan madaxweyne adigana aan ku soo dhaweyn saasaanu doonaynaa madaxweyne adigoo ku bilaabaya magacaaga oo saddexan شبع محمد عبد الله وحين كمان من قصين كرتا حرفة سودا وينتا يوجي جروجا اسمه من هذا الشباب marka hore waan dhawahay waan salaamayaa adiga TV-gaaga magacaygu saddexan waa Mawlid Karcali waxaan ka mid ahay dhalinyarada degmada Shilaabo aad ku soo dhaweynaya way waa maasan tahay sidee loogu diyaar garoobay xalfadda soo dhaweynta iyo mahadnaqa ismaamulka magaalada Shilaabo xafladda si weyn baa loogu diyaar garoobay ilaa iyo maalinka la magacaabay ismaamulka magaalada Shilaabo ilaa iyo maanta qabanqaabadii baa lagu jiray dhalinyarada odayaasha magaranaysaa cid walba oo magaranaysaa mas'uuliyad saaran tahay aad baa loo soo dhaweynayaa waa loo diyaar garoobayaa ilaa iyo haddana waa loo diyaar garaysan yahay si fiicanna waan u soo dhaweynaynaa konsulka Shilaabo adiga shakhsi ahaantaada markii aad maqashay magaalada Shilaabo waxaa laga dhigay ismaamul magaalo maxaa dareentay shucuurtaada ka wartay magaalada Shilaabo markii la yidhi ismaamul magaalo laga dhigay kulleetoo magaalada Shilaabo waxay ku taallaa xuduud waa magaalo taariikhi ah waa magaalo aad u weyn weligeed way u qalantay inay noqoto consul inay noqoto gobol inay ka sii saro marto way u qalantaa sababtoo ah dhul weyn bay ku fadhidaa baaxad leh dareen ahaantaada markaa maxaa dareentay markaad maqashay markaan maqlaan Shilaabo waa consul farxad badan baan dareemay waxaan kaloo dareemay in bulshadeedii waxay garanaysaa aan dhammaantaanada dadkoo dhan waxay dareemeen farxad bay dareemeen ilaa iyo haddana farxaddii baan ku jirnaa waaye maxaad is leedahay Shilaabo way ku mudnayd in laga dhigo ismaamul magaalo waxay ku mudnayd ismaamul magaalo markii la dhaho waxaa loo baahan yahay shuruudaha la buuxiyo shuruudihii bay buuxisay magaaladu waa magaalo aad u weyn waa intaasoo qabale garanaysaa waa magaaladii horumarka kaaluug bay ku fadhidaa iyo macdinta shidaalka iyo deegaanka dhan bay ku fadhidaa laamigii bay haysataa laydhkii bay haysataa waa magaalo horumarsan saasoo ku mutaysan